ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك شيخنا الفاضل وزادك الله التقوى. الله سبحانه وتعالى كبركيه وخير بدن هاكوسيو ولا قدال كسو غلي وبروجرام كينيا ان كلا تريا تلما قادن تلواتي الله سبحانه وتعالى محمد الى دادهين برنامجka waa abu dacwa oo aad wada taqaanaan from Toronto iyo ma taqaanaa yaaniga Fawzan ah iyo waliba Cabdi wali oo isaguna maxaan ku yiraahdaa xagga iyo Minneapolis ka soo tabin doona maanta xagga farsamada waxay noo jooga waa injineerkeeni waa injineer Umar haddii Allah subhanahu wa ta'ala uu yiraahdo insha Allah haddaan u galno haddii Allah subhanahu wa ta'ala uu yiraahdo talada teeda ugu horeysa aynu bilowno taladani waxa ay ka timiday waalidkan waa waalid aad iyo aad u murugaysan aad u dhibaataysan waa waalid hadda warqada ku soo qoray inuu hadda baraarugay waxa uu leeyahay sheekh awlaadii aan dhalay ayaan ka walwalsanahay waxay qaateen dhaqan ka wadankan aan joogno ka dadka ay la nool yihiin waxay tiri ma aanan barin waxa xalaasha ah iyo waxa xaaraanta ah waqti badan ma aanan gelin waan u shaqeynayay cuntadana waan siinayay iskuulkana waan geynayay xataa xagga dugsiga iyo quraanka aad iyo aad baan uga dayacay tiri waxay tiri hadda right now waxa ay la nool yihiin bay tiri markay wax farteen kadib gabdho aysan guursanin oo wax maheraaba yaraatee una u haynin markii aan isku dayay hadda inaan soxone anigiiba waxay haystaan qof dambeeya oo dhaqan Afrikaan ama dhaqan Carbeed ama dhaqan kale qof haysta marka waxa iga dhageysteen ma ay jirto marka waxay tiri sheekhow hadda ayaan baraarugay ee aan kacay maxaan sameeyaa maxaa ila gudboon dadku waa dad waaweyn bay tiri oo kulli wada qaadaan u gacan qabtaa bay tiri fadal mashkuuran uma jira بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحد مدى سؤاشا عروة سؤالها لوهر مريي إني ستوصة أي حريد أولا لهاي كلمة دي أنكار مريني أو ورباهنته إيا وحيابها لقد حلي قيب كميدة والد كان عليا walwalkiiyo walbahaarkuna uu ka haysto ilmihii uu dayacay oo maanta dayicitaankii ay dayacday midhaheedii ay guraato waxay leedahay waxay la degan yihiin gabdho ay kula joogaan xaaraam oo ilaahay tabaaraka wa tacaala kelimadiisa ayna isku xalaashanin waxaan ka qaban karana hadda ma garan karo way waaweynaadeen arrintaas iyada keliga ma aha qoysas fara badan oo Soomaaliyeed bay haysataa geesiyad baad tahay oo dad badan baa qarsanaya dhibaatooyinka Soomaalidu khaaska waxa kamida inay qarsadaan dhibaatooyinka ayagoo waajib ku ahayd inay soo bandhigaan wax lagala qabtaba ama loo duceeyo ama talooyin hala siiyo sida hadda aad u soo baraarugtay waxaad ka qaban karto ka qabo ilaahayna tabaaraka wa tacaala waanu kaaga baryaynaa inuu arrintaa kula garab galo oo kula sahlo oo ku sahlo dayacday awlaadaada ee aad moodaysay oo kaliya ilmaha in cuntada calooshooda cunto looga buuxiyo sida ay waalidiin fara badan oo Soomaaliyeed u malaynayaan ama dhar qurqurux badan loo gado ama sariir raaxo badan lagu seexiyo waa sida waalidiin badan ka dhaadhacsan in badan oo waalidiinta Soomaaliyeed kamidihi tarbiyada sidaas bay u fahamsan yihiin awlaada ilaa intuu Allah u naxariisto mooyeen tabaaraka wa tacaala ilmihii waqti baa ku socdo asoo weynaaday buu arkayaa qalbigiisina waa maran yahay iimaankiisina waxba kuma shubanin wax dadaala muuse gelinin dhaqaalaha iyo lacagta ugu badan uu gelinayo dhar iyo cunto iyo McDonald's in la geeyo bay ahayd hadda markii la weynaaday geed weyn oo iska baxay oo iska dheeraaday waxba kama duwano xayawaan waxba kama duwano shahwadiisa doonayo inuu meel ku guto horta waalidiinta Soomaaliyeed arrinta ku baraarugeen oo arrinta waa qayla dhaan way
arrintaasi inqiraad iyo baabaa bay ummaddii gaadhsiinaysaa. ilmaheenna aan ku bixinno kharashka aanu ayuutooyinka iyo shaloongada aanu ku gelayno een guryaha meelaha kaga dhisanayno, ilaahay intaan ka baqno aan awlaadeenna gelino. ilaahay intaan ka baqno aan carruurteenna waxbarashada diiniga ah iyo waxbarashada caqiidada ah, war ilaahay aan ka baqno. war ilaahay Soomaaliya ilaahay aan u noqonno, oo mas-uuliyadda waana la weydiinayaa maalinta qiyaamo. khilaaf meel walba la joogo, kala tag meel walba la joogo, kadibna natiijadu maxay noqotay? inay awlaadi dhumaan, in madaaris loo sameeyo oo kharashka ugu badan la geliyo, kharashka ugu badan la geliyo, oo dad mucallimiina oo culummo ah oo caqiido iyo fiqi iyo diin iyo manhaj baraya dhaqaalaha ugu badan lagu bixiyo. waalidkuna intay labada gacmood isqabsadaan, dhaxdana dhiisha iskaga dhigaan, inay dhahaan adiguna waktigaasaan leedahay, adiguna waktigaasaan leedahay. war arrinkaas baa lagaga bixi karaa wadamada la joogo. awlaadeennuna wuxuun kaga badbaadi karaan. ama odaygii suusaaka u baxay lama hayo, habartii siday maanta u baxdayna lama hayo, ilmihiina gaalo ayaa loo geeyey, maskaxda ayaa laga soo dhaqay, intaas waxoodoo dhan baa lagu soo guray. guriga markii la imaadana hooye soo dhawo, maxaad cuni oo maxaad cabi, oo halkaa quruxda badan seexo, iPhone-nada iyo iPad-yada u gad, waxa ugu dambeeya dharka iyo kabaha iyo sportska, waxa intaa lacag ku bixi. laakiin caqiidadoodii ma leh, caqiidadoodu waa maafi, caqiidadoodu waa meel muran. haakada miyaad ilaahay la hortegaynaa tabaaraka wa tacaala? su-aasha gabadhani waxay matalaysaa qoysas aad u fara badan oo labada gacmood isku garaacaya, oo aan wax gacanta ugu jira aan jirin. waayo intay yaraayaan baa dayacday, marka adiguna markaad weynaatana way ku dayacayaan. naftoodii bay dayaceen, oo diintoodii bay dayaceen, oo adigana way ku dayacayaan. arrinta ayada ha lagu baraarugo. gabadha waxaan leenahay, qofku haddii uu soo baraarugo, soona toobad keeno, dembigiisana uu qirto, waxaa la gudboon duco badan iyo salaad badan iyo istikfaar badan, iyo awlaaddii siduu mar labaad oo la saaxiibi lahaa, ugana dhaadhicin lahaa islaamnimadooda iyo sharaftooda iyo soomaalinimadooda. taas ayaa waajib caawa kugu ah. wax kale oon caawa kugula talin karo ma lahan. hidaayadana ilaahay baa haya tabaaraka wa tacaala, laakiin darsi waxay u tahay kuwa kula midka ah ama kaa dambeeya ama kaa horreeyay bay darsi u tahay. marka soomaalida ay dhegaysanaysa muslimiinta aw ama ay dhegaysan doono, gabadhaa su-aasheedu yayna idinka hoos bixin. gabadhaa talada ina weydiisa waa talo xanuun badane, yayna idinka hoos bixin. talada waa talo muhiim ah. maanta ilmahaga dhaqaalahaad haysa geli, xoolo waxaad haysoo dhan ayaga geli, ayagaa guryo dhisan doona, ayagaa dabaqyo dhisan doona, ayagaa shirkado geli doona. waxaa laga yaabaa adigu inaadan aabbaha xoolahan haddaad haysato inaadan aabbaha iyadaa kaaga dhimanin, laakiin haddana waad heshay. ilmahan ayagaa wax tabcan doone, ayaga maskaxdooda iyo caqiidadooda culummada garab istaaga, oo masaajidada garab istaaga, oo macaahidda garab istaaga, oo iskuulla dhista, oo u yeedha cid alla ciddii ilmahani intay yar yihiin tallaali karta oo caqiido ku beeri karta, u yeedha. ilaahayna tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaa inuu awlaadeena noo barakeeyo, noona xifdiyo. hooyadaas Soomaaliyeedna walwalka iyo walbahaarka uu ka qaado ayada iyo in alla inta lamidka ama wallahu aclam.